السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب ونكسن طبعا ذهب كأسبوعا تريد كان قادمي بقول يكون تقبيب إنه جاري وأنا هاف كقادمي كدي بوصان قوي تريد يعني expectation كانوا روها أنا ممكن إنتريجا هكذا بوصل بس كانوا يالي لكن مرة بقول يو كبدا بعضو على تريد عافية عن إن تستولوس كإنتري لو كان سنة إنتري عن كان سنة تستولوس كينا وحرجينا لما كان ليست إن بول باكن وهكذا جاري دونا أقول أنت فبناتشي لما كان صوص وراني إنه لا 50 لا 60 جاري دونا ما كان فايلوشن باكو يمت فايلوشن كان نواس كتيرتا وحولبا وعلى وحي سبتما ما كأسبوع عصبا أسبوع عم بهاك عسكنا البام بحنا في الأيام فايلوشن كان وح عادي وحي سبتما marka faylashku waxa uu gaaray inuu gidaarkan mar labaad yimaado isla eedadan waliba qofkii saakadan joogay xilli hore maybe mashquul ahayn oo reliable lahaa oo ardada ila trade garaysa halkan waxay ahayd chance fiican inuu bayga qabto halka ka qabto anaga stoploska hadda meelahan oo kale noo yaala laakiin qofkii soo jeeday oo kale tradekan ila qaataa inta badan oo ila trade garaya fursad fiican buu ahaa horeyna uu ka garan kari lahaa automatically inay fursaddan tahay fursadiisa marka wax idina wax qaatay ma jiraan madi weydiiyey su-aashaas okay April 26 bayna marka taa weeklyga weeye dailyga weeye ifan weeklyga rejection kan waa rejection aan doonin meeshan waa meeshan aan doonin soo gaaro yani almost 71 hadduu mar soo gaarayba still macquul weeye tradekan inuu yani dahabku inta badan waxyaalo aan lagu xisaabtamo inuu sameeyo laakiin marba hadduu halkan soo gaaray maybe inuu yaro noqdo haddana awood kale kusoo kara qaato halkan soo gaaro waa possibility baa la oran karaa laakiin meeshan waa strategy confirmation oo suuq lagu qaadan kara bay ahayd dhinaca kasta markii laga eego marka weeklygan waxaa ka haray maanta iyo berito marka maanta iyo berito inta ku dhamaado suuq ku dhamaadaan eegi doonaa qaabku ku dhamaado maanta iyo berito waa arki doonaa insha allah aniga halkaas ayaan uga haray okay waad aragtay inay tahay daily iyo kind of rejection waad ka yara cabsatay okay haddaba meeshan hadda arkaysaan waa meeshii isku hay dambeysay 26 April istowloskan meelahan noo yaalay kaan lakan almost 150 biib noo dhaqaaqay halkan baa ahayd meesha marka turning pointiga halkan bay marka meesha turning pointiga waan rajaynaynay inaan fursad kale oo seela ka soo qaadano laakiin meeshiiba maxaa lagu tegey meeshiiba waxaa lagu tegey orod baa lagu tegey yani meeshan rejection keenaan raadinayna waa maxay meesha bayga fursad kale baygaan ka raadinayna halkan bay ahayd 1869 ama 1870 ama 1871 intaba waa isku mid markaan laka marba hadduu rejection halkan madaxa la soo gal ku dhuftay halkan gidaar tahay halkan gidaar kale gidaar tahay
يعني fursad fiican kala socono ilaa in badan baa halka ka muuqata laakiin waxaa qurux badnaan lahayd sida anaga aan sawiranay laakiin tiriirku mar walba sidaa sawiratay maaha sidan baa laakiin aad qurux badnaan lahayd okay so maaragtan rejection-kan dailiga balnagee meeshii ma yimid exactly waa yimid gidaarkan buu ahaa mar walba inuu yimaado annaga waxaan rabnay marka sidaan rabnay waxay ahayd 26 abril inuu kaan halkaa tago kadibna halkan gidaarkan uu yimaado kadibna long time buyga aan ka qaadano long time buygan halka ka qaadano marka maadaama fikraddaas dhan hadda isbedeshay oo 71kii ama 70gii oran lagu yimid qolkan update geenaya waxaa dad fara badan inay ka maqan yihiin okay mahadsantihiin marka hadda maxay noqon kartaa hadda waxay noqon kartaa aan sawiranaynaa horta mar dambe mar haddii gidaarkan la yimid ma arko gidaarka in dib loo dhaafayo haddii la dhaafayo in suuq uu helo meel oo at least uu kasoo karar qaato ama awoodiisa kasoo bilaabato marka halkan ilaa iyo 17 waa tegaya ilaa iyo 17 waa tegaya ilaa 17 marka ma tahay Fibonacci number saxa may ma aha Fibonacci wuxuu noo sheegayaa bartan inuu yahay Fibonacci-ga 6 ilaa iyo 50 inta u dhexeeya 6 ilaa 50 bartaas inuu yahay marka waxaa la fili karayaa waxay tahay in candle weyn uu samaysmo oo kale candlekaasna hadhowdii wick noqdo oo baadigiisa bartaa kusoo noqdo marka waxay noqonaysaa another opportunity oo suuq uu ku imaan karaya xataa halkan uu ku imaan karayo fursad kale hee oo suuqu halkaa ku imaanaya bay noqon kartaa okay marka isla Fibonacci-gan eegno soo noqodkii meesha uu tegi karo soo maaragtaan 1.618 almost is there ilaa halkaa uu tegi karaa the only way ilaa iyo 1830 uu gaari karayo the only way oo ilaa iyo 1848 ilaa 30 uu ku gaari karayo ilaa 37 waa saas weeyaan
good. marka haddii marka rejectionkan Fibonacci-ga numberskan Fibonacci-ga rejectionkan meeshan 1.0.618 oo Fibonacci hadduu ixtiraami waayana that means waxa weeye inuu jabiyo suuqa halkan inuu jabiyo gidaarkan oo kale inuu jabiyo kadibna uu kusoo noqdo gidaarka inuu jabiyo kadibna suuq kusoo noqdo kadibna suuq uu noqdo long time buy inuu aado oo hore aan usii wadano labada option weeyaan option 1 option 2 laakiin xaaliyan hadda signalkan ku jirno 1884 aan kasoo galnay almost ilaa iyo 40 TB waa maxay ilaa iyo 41 baan ku geeyay TB oo halkan waa numberka Fibonacci ah waa ku geeyay imise BP noqon kartaa makinta 574 BP 300 haddaan ka helno alxamdulilah ama 350 haddaan ka helno we are out haddana already 40 BP way socotaa ha ka bixinna marka trainka haya haddii xataa rabtaan inaad ka baxdaan waxaa ugu bixi kartaan gidaarkan waa baxa gidaarkan imise ku beegaya markaa bip 337 bip gidaarkan waa baxa haddaa rabtaan haddii kalena ilaa iyo TB-ga suga haddaad xataa ka baxaysaan haaf xirta marka signalkanna waa berito baa laga yaabaa inuu bibis kugu fiican weliba na siiyo iyo isniinta waa ku jiraynaa good haddaan kayla fahantay wawan isoo qoran entry kale ma jiraa ustaadkii hore wuu dhaafay okay entry kale waan ku siinayaa almost hadda waxaa arkaysaan 4 hourkii xataa inuu toos suuqu bilowday inuu move gareeyo ama u dhaqaaqo marka haddii aad rabtid inaad geshid oo kale entry kale geshid almost kaana kale waxaa ka dhiman 12 hour halka xataa waxaa ka arkaysaan in 2 hour
inuu sameynayo fallen wedge kale marka break inuu sameeyo oo dhaqaaqoon baa noo haya marka tbgeena kood waa kana tbgeena labaadna waa kaasa saasuu noqonaya aduu ilaahay walaal almost hadda 35 bib waa socotaa 40 bib meelaha ku dhawaad marka la 11 daqiiqo marka dhamaato galmo 11 daqiiqo meesha ku dhamaato ka galmo maxay hadda crucial timing baa socda timku isku bedelayaa marka sugo waxaa laga yaabaa haddii timekan hadda inuu hoos u dhaco intriga kusoo noqdo meesha ka galno halkana 84 inuu kusoo noqdo halka intrigaaga waa ka geli kartaa ama inuu break caadiya sameeyo oo kaana ku banaanka ku xirmo markaasna waa geli kartaa laakiin hadda waxay moodaa meel dhexaad inuu ku jiro marka 10 daqiiqo ay dhamaato gal واو كنت iyo 8 bib واو 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 كنت 8 bib baa waabi waxay noo ahayd wax aad u weyn mugta hadda iimaanka baa naga soo dhacay oo boqolaalo bib baa hadiyana lixdan bib toddobaatan iyo 5 bib ayuu marayaa alxamdulilah almost waxaan filayaa maanta taariikhkeena inaan dhaafi doono marka tbgaaga kood waa halka kaaga labaadna waa saan ku tilmaamay waa halka kale wax su-aal haddaa kala qabtid waa isoo weydiin kartaa intaan xiisada ka bixin berina waa jimco isniintana waa iid marka waxaan filayaa inaad tariikan haysan doontid there is no way aad 500 bib uga baxdid hayso tariikan 340 bib almost 585 bib inta hadday ku seegto ciidka iska raadso waxba wax damba ha samayn waa the best way oo aan ku ciidi doono insha allah ilaahayna almostina waan wadnaa marka 100 bib la gaarana stop loss intriga marka keensan doonaa sidaasaan wax loo yaqaano kusii socon doonaa
عيد أحد مياه مس السنين وطبعا إن أنا السنين نوتها في الأيام حد ما سنين تاني نوتها في الأيام good. أوكي أنت أصلا كسر بيني حسيتين ماتها سمعنا ونحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته